kulanti habboon daawadayaal halkani waa NTN TV ku soo dhawaada wararka telefishinka NTN oo idin hayo midnimada qodobada ugu doorka wararka NTN TV na waxa kamid ah hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo loo magacaabay hoggaan cusub waa kuma hoggaankaasi wuxuu ka bedeli doonaa hawlgalka dhana ururka al-shabaab ayaa laga furiyay gobolka Shabeellada Hoose al-sunna oo ka hadashay go'aankii maxkamadda ciidamada qalabka sare ay waaranka ugu jartay markii ugu horeysay arrinkaas muxuu kala hadlay ergeyga midowga Yurub u qaabilsan geeska Afrika ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo kala la qaatay waad ku daawan doontaa barnaamijkeena safiirka dalka Kenya u fadhiya Soomaaliya tarsan waxa uu Kenya ka sheegay arrin la yaab leh maxay noqon doontaa wararkeena ayaa ku daawan doontaan wararka dibadda aynu idin haynana waxa ka mid noqon doona dawladda Pakistan oo militariga u yeertay kadib markii uu Imran Khan ku kiciyay dibadbaxyo xooggan oo dalkaasi ka dhacay muuqaal muujinaya Ruushka sida uu tabardarrada ugu yahay dagaalka Ukraine ayaa la baahiyay waa daawan doontaan hagaag waa 26 May sanada 2022 qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan oo aad ka daawataan telefishinka NTN habeennimadani ku soo dhawaada golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta kulankoodii qamiislaha ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa ansixiyay magacaabista taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka taliyaha cusub ee hay'adda ayaa waxa loo magacaabay Mahad Maxamed Salaad oo kamid ahaa xubnaha sida weyn ugu dhawaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Mahad Salaad oo sidoo kale kamid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee 11 ayaa 5 sano ee la soo dhaafay kamid ahaa mucaaradkii dawladdii uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee xilka ka degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya oo muddo ahayd mid aan taliye lahayn kadib markii xilka qaadis lagu sameeyay taliyihii hore ee hay'addaasi Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kadib kiis la xiriiray dilkii gabadhii ka tirsanay hay'addaasi ee lagu magacaabi jiray Ikraan Taliil Faarax ayaa muddooyinkii dambe waxaa hoggaanka hay'addaasi kusima ka sii ahaa Yaasiin Faray oo hadda ka mid noqday xildhibaanada 11 ee baarlamaanka Soomaaliya waxa ayna hay'addu muddooyinkii u dambeeyay wajahaysay ama dul hoganayay dhaliilo uga imaanayay eedeymo dhinaca shacabka iyo dhaqanka dadka sida ula dhaqmeen iyadoo hoggaankii hore ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir lagu eedeeyay dilal iyo arrimo kale oo aad u xooggan taasi oo sababtay xubin baarlamaan uu raadsaday in uu ku waayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa kumaandooska Gorgor waxay hawlgal qorshaysan ka fuliyeen kaasi oo ka dhana ururka al-shabaab deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose saraakiisha hogaaminaysa hawlgalkaani oo la hadlay NTN TV ayaa sheegay in ciidamadu ay hawlgalkaasi ka fuliyeen tuulooyinka Tawakal iyo Boolow oo ka tirsan degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose iyagoo sidoo kale xusay inay burburiyeen saldhigyo ay al-shabaab ku lahaayeen halkaasi waxayna intaasi ku dareen saraakiishu in sidoo kale ciidamadu tuulada Tawakal ay ku gubeen doon nooca dheereeya ah kuwaasi oo al-shabaab isticmaali jireen oo adeegsiga badda waxyaabaha ay ku kala gudubsadaan saraakiisha ayaa sidoo kale tilmaamay in hawlgallada ka dhanka ah al-shabaab kana soconaya gobolka Shabeellada Hoose ay sii socon doonaan ilaa iyo inta ay ka soo cirib tirayaan sida ay hadalka u dhigeen ururka hubeysan ee la magac baxay Ahlusunna wal Jamaaca ayaa ka jawaab celiyay markii ugu horeysay hadal ka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida taasi oo waaran maxkamadeed loogu jaray saraakiil ka tirsan ururkaasi raggan waararka soo qabashada loo jaray ayaa loo haystaa inay qayb ka ahaayeen weerarkii ururkaasi uu toddobaadyo ka hor ku qaaday magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug intooda badan waa askar iyo saraakiil liiska ku jirta ay baahisay hay'adda booliska Soomaaliya gaar ahaan Galmudug ka howlgasha kuwaasi oo ay maxkamaddu sheegtay in waaran soo qabasho ah lagu raadinayo 13 bishii May ayaa ahayd markii al-sunna ay weerar hubeysan ku qaadeen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug halkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Galmudug Cabdisalaan Aadan Xuseen madaxa siyaasadda ururka al-sunna ayaa sheegay in maxkamadda laga hurinayo colaad hor leh isagoo nasiib darro ku tilmaamay sida uu sheegay in la raadsado al-sunna iyagoo ay joogaan buu yiri ururada argagixisada ah ee al-shabaab goobo u dhow
caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. Waxa uu intaasi ku daray in ahlu sunna ay mar walba isdifaaci doonto sharafkeedana difaacan doonto. Go'aanka maxkamadda waa uu laalay waxa uuna sheegay inuu yahay mid lagu daandaansanayo ahlu sunna. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble oo ayaa kulan la qaatay ergeyga gaarka ah ee Midowga Yurub u qaabilsan Geeska Afrika. Kulankooda ayaa ku saabsanaa xaaladda abaaraha dalka ka taagan, amniga Soomaaliya iyo sidii Midowga Yurub ay uga taageeri lahayd Soomaaliya soo kabashada abaaraha ku dhiftay inta badan dalka Soomaaliya. Xubnaha wafdiga ergeyga gaarka ah Midowga Yurub u qaabilsan Geeska Afrika uu hogaaminayay ayaa kulankooda Ra'iisul Wasaaraha waxa ay si qoto dheer uga hadleen daadejinta maamulka iyo sidii dawladda cusub loo garba qaban lahaa isla markaana looga ilaalin lahaa hadafyada hoos u dhigi kara dawladda Soomaaliya. Ergeyga wuxuu sheegay in Midowga Yurub ay awalna hore u taageeri jireen iminkana ka go'an tahay laba jibaarka taageeradooda. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya, Mudane Maxamed Nuur Tarsan ayaa hadal uu ka jeediyay kulan lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya looga baahan yahay xiriirka labadaasi dal inay dib u soo celiso. Wuxuuna ugu horeyn Tarsan u mahad celiyay ama u hambaliyay madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud. Danjiraha ayaa soo hadal qaaday arrimaha Soomaaliya iyo Kenya maadaama uu xiriirkoodu 5 sano ee la soo dhaafay ahaa mid madmadow ku jiro. wuxuuna arintaasi sheegay in madaxweynaha cusub looga fadhiyo inuu meesha ka saaro. Wuxuu madaxweynaha ka codsaday in meesha laga saaro waxyaabaha soo kala dhex garay labadaasi dawladood isla markaana habla diblomaasiyad dib loogu soo celiyo. Tarsan ayaa intaasi ku daray ama wuxuu u soo jeediyay madaxa cusub ee Soomaaliya in dib loo furo xadka labada dal dhinaca ganacsiga, isagoo sidoo kale tilmaamay in faa'iido badan ay ugu jirto shacabka Soomaaliyeed wadaagidda iyo wax isdhaafsiga labadaasi dal. Si kastaba Soomaaliya iyo Kenya ayaa siyaasad ahaan isku farasaaray sanadihii la soo dhaafay iyaga oo xitaa mar kala qaatay safaaradaha, waxaana sidoo kale xiisada uga soo daray kiiska badda ee ka dhaxaysay labadaasi dal ee markii dambe gaartay maxkamadda ICJ kaasi oo ay Soomaaliya kolkii dambe ku guuleysatay. Dawladda Pakistan ayaa ogolaatay in la soo daabulo militariga si ay u difaacaan xarunteeda Islamabad. Saacadihii hore ee Khamiistan ayaa kumaandooska dalkaasi waxa ay dibadbaxayaasha halkaasi uga hortageen, kuwaasi oo soo abaabulay ra'iisul wasaaraha hore ee dalkaasi Imran Khan oo isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee Islamabad. Ayaa socod ku maray caasimadda Arbacadii hore si uu uga dalbado dawladda in la sii daayo boqolaal dad oo loo xiray ka soo horjeedka fikirkii dawladdaasi. Kooxaha sida gaarka ah u abaabulan ee mudaharaadyada ka wada dalkaasi Pakistan ayaa lagu soo waramayaa in 50 kiiloomitir ay u soo jiraan caasimadda Islamabad, iyaga oo la sheegay in banaanbaxayaashu ay waxyeello gaarsiiyeen dhismooyin aad u badan oo ku yaala dalkaasi. Imran Khan iyo kooxihiisa waa ra'iisul wasaarihii hore ee la afgambiyay ayaa wadooyinka waaweyn ee Islamabad iyo magaalooyinka kale waxa ay ka dhigayaan dibadbaxyo ay ku dalbanayaan in dib loo soo celiyo xukuumaddii Imran Khan ee dhawaan la afgambiyay. Dawladda dalkaasi Ruushka ayaa 24 February ee sanadkan 2022 ku duushay dalka ay xadka leeyihiin Ukraine, xilligaasi oo haatan laga joogo 3 bilood iyo maalmo tii oo aan dagaalku weli dhamaanin. Ruushku waxa uu markii hore weerarkiisa u muuqday mid uu ku soo gabangabayn doono muddo kooban, ha yeeshee ciidadiisa uu isugu geeyay jihooyinka kala duwan ee dhaca goobaha istiraatiijiga ah ee ku hareeraysan dalkaasi Ukraine ayaa noqotay mid Ruushka waqti badan ku qaadata. Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo arrimaha militariga waxa ay Ruushka kolkii hore u saadaalinayeen in Ukraine kaga adkaan doono waqti kooban. Ha ahaatee waxaa Ruushka ay ku qaadatay in uu ka soo gaaro khasaare aad u xoogan dagaalka uu ku qaaday Ukraine ayaa dhankeeda waxa ay weli sii wadaa tallaabooyinka ay ku horumarinayso waxyaabaha ay kaga hortagayso hubka aadka wax u gumaada ee Ruushka gacanta ugu jira kaasi uu adeegsanayo dagaalka Ukraine. Duqaymaha Ruushka uu ka wada gudaha Ukraine ayaa ah mid iska sii soconaya, taasi oo ay weli indhaha ka fiirsanayaan inta badan caalamka oo aan taageero buuxda u fidinaynin dawladdaasi Ukraine. Lama oga halka uu ku dambeyn doono dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Wuxuu Ruushku weli ku adkaysanayaa in uu Ukraine ka saaro fikirka ku aadan ka mid noqoshada ururka NATO. Madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin oo fariin dhiirigelin u waday ciidamada dalkaasi waxa uu booqday isbitaalada ay ku jiraan dhaawacyada militariga Ruushka oo ku soo dhaawacmay dagaalkaasi Ukraine. Wuxuu Putin u rajeeyay ciidamada Ukraine iyo shacabka inay ka guuleystaan kuwa uu sheegay inay jiritaankooda ku soo xadgudbeen.
NTN TV.